xanaaq dagaal iyo hadal adeeg Maria ayaa ah mid ka mid ah xidigaha xirfadoodu sareyso mowhibana u leh ciyaarista kubadda cagta walow ay u baxday ninkani naanaysta ah wiilka waalan Balotelli ayaa ah mid la kulmay xanuun dhanka taageerayaasha ah isaga oo wajahay cunsuriyeen iyo qaabilaad la'aan taageerayaasha qaranka Itaaliya oo ay ku riixayeen midabkiisa madow dhowr jeer inta uu ku jiray garoomada waxa uu la kulmay in loo adeegsaday qobka mooska ama muuska si ay niyad ahaan u dilaan balse si geesinimo leh ayuu Maria u muujiyay jacaylka uu u qabo wadankiisa waxaan ahay Italian waxaan dareemayaa in aan ahay dhalashadii ugu fiicneed ee aan helay waxa ay ahayd markii la iga mid dhigay xidigaha xulka qaranka Talyaaniga hase ahaatee Maria Balotelli ayaa ahaa mid si degdeg ah dibadda loogu tuuray 2 sano jirkiisii waxaa ka tagay qoyskiisa isagoo iska dhaleen aabbe iyo hooyo Gaanees ah sabab la xiriira noloshooda oo aad u liidatay maadaama ay ahaayeen qoys faqri ah waxa uu la qabsaday reerka u dhashay wadanka Itaaliya ee soo korsaday isaga waxa uu muujiyay riyadiisa ah in uu noqdo ciyaaryahan weyn 4 sano jirkiisa balse sheekada ayaa noqotay mid xanuun badan riyadiisana isku bedeshay qarow marnaba ma doonayn jamaahiirta Talyaaniga in Maria uu u dheelo qarankooda ma jiro Talyaani madow waa fikir ka mid ah waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo heerka ugu sarreeyay ee cunsuriyad ee lagu la dhaqmay Maria Balotelli sidee ayuu wiil da'yar ah hami weyn ka leh ciyaarista kubadda cagta uu u wajihi karaa caqabadahaas noloshiisa hareereysay haddaba daawada adigu sidee kula tahay in uu noqon lahaa mar kale iyo caqabad cusub waxa ay ka soo wajahday Jose xagiisa ma aqbali karo xidig yar haddana u tababaranayo wax ka yar sida Vigo Cordoba iyo Sinetti isagoo aad u muujinayay daciiftinimo uu ku tilmaamay Maria Balotelli waxa uu mar kale aad u dareemay in sidii oo kale banaanka la iska dhigay isaga oo nacayb badan qaba ayuu isaga soo dhaqaaqay horyaalka Itaaliya kuna biiray Manchester City xirfad sare iyo wax qabad ayuu la yimid naadiga City isagoona ka mid noqday si awood lehna u soo bandhigay weeraryahanadii markaas ugu saameynta badnaa Ingiriiska laakiin bandhigiisa marnaba ma ahayn mid qarin karo dhaqankiisa iyo dabcigiisa qalafsanaa waxa uu gubay gurigiisa waxa uu la dagaalay qaar ka mid ah saaxiibadii waxa uu jabiyay gaarigiisa saas ay tahayne waxa uu qarankiisa siiyay wax walba oo ay ku guuleysan karaan isaga oo banaanka keenay geesinimadiisa waxaase mar kale taabsiiyay xanuunkii uu ka soo orday hogaamiye Mancini oo markaasi ahaa leylihii Manchester City iyo xanuun kale iyo Balotelli kooxba koox ayay u dhiibtay waayihiisuna waa isbadbedelayeen Liverpool AC Milan iyo sidoo kale naadiga Nice marnaba isma bedelin laakiinse waxa uu muujinayay madadaalo qalbi jab ay ku dhex jirto maxay kula tahay qasaare inta la eg shakhsi ay gaartay in uu noqon lahaa Maria Balotelli shakhsi lagu qasbay dabciga adag ee mar walba muujiyo